bandhig suugaaneedkan caalamiga ee loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kulmisay abwaanada Soomaaliyeed ee qaniga ku ah hal abuurka suugaanta ayaa waxa kamid ah abwaanka weyn ahna qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo si qoto dheer leh uga hadlay taariikhda sayidka. in badan ayaan ka hadlay, in badan ayaan soo qaaday, in badan ayaan dadka inaan ka dhaadhiciyo isku dayay Soomaalida iyo shisheeyaba. dad badan oo Soomaali ah ayaa maanta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan xurmo weyn iyo maamuus aan la arag oo aan la maqal u haya. taasina waxay caddaynaysaa goobtan aan joogno oo la yidhaahdo Jigjiga dagaalkii u horeeyay Sayid Maxamed qaaday halkan buu ka dhacay. ciidamadii Menelik boqorkii Ethiopia oo xoolo ka soo qaaday caro ogaadeen ayuu ka daba yimid in xoolihii ka dhaciyo, haddana dagaal weyn bay ku noqotay. si kastaba ha ahaatee dagaalkii Ingiriis uu la galay Sayid Maxamed iyo Talyaani wuxuu iska ahaa coincidence, ma aha wuxuu ku tashanaa markii hore, laakiin dagaalkii wuxuu u batay dhankaa iyo waqooyiga iyo koonfurta ayuu u batay. magaciisuna halkaasuu ku dheeraaday. Sayid Maxamed Cabdulla Xasanna waxaan u malaynayaa saaka waxaa laga dhawaajiyey, waxaa la yidhi shisheeyaha ayaa sokeeyaha ka hor wuxuu qiray raganimadiisii iyo haddii aan ku leeyahay wadaniyadiisii iyo ninkarmeednimadiisii intaasba waa la qiray. abwaan qoraa Idaaja waxa uu madashaasi ka soo jeediyay gabayadii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo markii la dhageysanayay haba yaraatay dadku ayna dhagaa xuqan murtida iyo micnaha mugga leh ay xambaarsan tahay. 9 nin oo walaala ah sideenaas, 8 isku bah tahay sidiinaas, waa bahagaalaad weeye bahdu sheegaya. 8 isku bah tahay sidiinaas, ninkuna bahgaar yahay sidaydaas. 8 ninkii sidiinaas, ninkuna sirtii garan sideenaas sidaydaa. haddaynu isa sideenaba ma iska kala soconaa sideenaba buuri. marka waxa weeye taariikhda iyo suugaanta in Cabdulla Xasan Soomaali oo dhan ba iska leh, qoys iyo qolo iyo tol midna ma leh. sidoo kale odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer leh uga hadlay iyaguna bandhig suugaaneedka loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, isla markaasna sheegay in jiilka mustaqbalka looga baahan yahay in loo gudbiyo isla markaasna la xafido taariikhda sayidka maalin iyo 2 iyo 3 taariikhdiisii wax qabadkii ummadda Soomaaliyeed u qabtay laguma soo koobi karo. waxaana farxad noo ah in maanta howlka sayidka lagu qabto la isku xasuusiyo taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ay fadhiyaan qoraayadii iyo taariikhyahanadii iyo abwaanadii Soomaaliyeed oo geyiga Soomaalida meel walba isaga yimiday. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. farxadda sayidku ummadda Soomaaliyeed wuxuu u qabtay halgan taariikhiya, halganka taariikhiga ee dagaalka Kasakow. sayidku wuxuu ahaa kibirka iyo isla weynida maanta Soomaalidu ay leedahay ay ku faanayso ee ummadda Afrikaanka kale ay kaga duwan tahay, ay qoorta kor u taagayso. ninkii Ilaahay sabab uga dhigay buu ahaa sayidku. taas way ugu muhiimsan. halganka dhuleed iyadoo meeshiisa yahay, halganka dawladnimo oo meeshiisa yahay, halgankii suugaaneed iyo kii diimeed isagoo meeshiisa yahay, halganka moraalka ah ee ummadda Soomaaliyeed inay jirto oo ninka Soomaaliga meel walba adduunka joogo uu qoorta kor u qaadayo, uu isla weyni iyo kibir ku noolaanayo. aabihii noo jeexay weeye Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, naxariistii janno Allah siiyo. taariikhda sayidku maaha wax lagu dheeleeli karo. qofkii ku dheeleelada horta annagaaba raadsanay.
sayidku wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed midnimadooda iyo wada jirkooda iyo islaamnimadooda nin aad iyo aad ugu soo halgamay